caddaatay in muuse ku harin waxaan ahayn muran iyo garnaqsi aan dhammaad lahayn. haddaba mar haddii ay kaalintoodii gabeen golayaasha qaranka oo hawshan lahaa, maanta taladu waxay u taallaa waxgaradka ummadda si ay u badbaadiyaan qarannimada, waana in la isugu yimaado madal qaran. waxaan u sheegayaa taageerayaasha xisbiga wadani ee gobolka Maroodi Jeex inay berri 8 subaxnimo isugu yimaadaan xarunta xisbiga si loogu sheego fariimo muhiim ah oo qaranka lagu badbaadinayo. gudoomiyaha xisbiga wadani sidoo kale waxa uu ka jawaabay hadal maalintii shalay ahayd uu jeediyay madaxweynaha Soomaaliland oo uu ku eedeeyay xisbiga mucaaradka ah ee wadani iyo taageerayaashiisu inay xiriir la leeyihiin dawladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya. arrintaasi ayuu ciro ku tilmaamay in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu uga jeedo in beel kamid ah beelaha Soomaaliland uu ku eedeeyo arrin aanay lug ku lahayn, waxaana uu sheegay inay burburin karto qaranka Soomaaliland. muuse iyo xisbiga kulmiye xukuumaddiisu waxay caadaysteen kuna soo celceliyaan in xisbiga wadani iyo taageerayaashiisu ay gacan saar la leeyihiin Soomaali weyn. waxaan ummadda u sheegayaa in muuse iyo gacan yarayaashiisu u adeegsadaan ku celcelinta arrintaas kala qaybinta bulshada walaalaha ee reer Soomaaliland ee ay ahayd inay mideeyaan. balse waxaan idiin sheegayaa inay muuse shakhsiyan u dheer tahay arrinta adeegsigeedu inuu u jeedo beel gaar ah oo reer Soomaaliland ah, danta uu ka leeyahayna tahay kala haynta iyo kala qaybinta ummadda reer Soomaaliland walaalaha ah. arrintaas oo sun iyo waabeeyo ku ah dawladnimada sida dhaxalkana u cunaysa qarannimada iyo wadajirka Soomaaliland. geesta kale Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani waxa uu ka jawaabay hadal maalintii shalay ahayd uu jeediyay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi kaasi oo ku aadanaa arrimaha doorashooyinka. shalay muuse wuxuu ka qayb galay carwo caafimaad oo lagu qabtay magaalada Hargeysa. waxaan aniguna filayay dadkuna filayeen inuu kala hadlo wixii u qabsoomay dhinaca caafimaadka muddadii uu xilka hayay iyo inuu kala hadlo cudurkii kuduudiyaha ahaa ee gobolka Togdheer dadka badan ku laayay qaar badanna u jiifaan. hase yeeshee waxaa ii muuqday shalayto inaanu muuse xogayaal u ahayn dastuurka iyo xeerarka Soomaaliland. waxa uu dadka ka hor sheegay shalay inuu jiro xeer anigu saxay oo lagu soo xulayay komishanka doorashooyinka qaranka. xeerkii lagu aasaasay oo ah xeerka kaliya inuu leenahay waxa la yiraahdaa xeerka number 20 ama xeerka 20aad 2001. xeerkaasi wuxuu soo baxay xilligii baarlamaankii hore jiray baarlamaankii hore waxaana saxeexay 8 December 2001 marxuum madaxweyne maxamed xaaji ibraahim cigaal cabdiraxmaan cirrame saxiix 18 sano ka hor bay ahayd. taasi waxayna tusinaysaa inaanu madaxweynuhu xogaal u ahayn xeerarka dalka. sababtaasna waxaan leeyahay waa sababta ugu weyn ee madaxweynuhu ugu tumanayo xeerarka. in muran ka jiray komishanka doorashooyinka qaranka labadii sane ee muuse madaxweynaha ahaa muddada sanad iyo barkaan isku haysanayna la iskuma diidanayn in komishanka la bedelo. muu diidanayn inuu bedelo laakiin wuxuu lahaa awood aan ku bedelo malihi. heshiiskii waxaad moodaan